horta diyaaradahan waxay si sharci uga soo baxeen airportka Istanbul wax military kama soo bixi karaan oo dawladda Turkiga aysan wadan dawladda Turkiga aniga xiriir military lama leeyahay dawladda Soomaaliya xiriir military la leedahay diyaarada certified weeye waa civil use weeye waxa loo isticmaalaa development projectska dhulka lagu sameeyaa meelaha biyuhu ay ka baxaan oo ka galaan maxaa badda si loo xiro waxa lagu buufiyaa ayaxa waxa lagu buufiyaa cayayaanka beeraha hadaa la furan yahay meel qalab military ka gali karo oo laga rakabi karo ma ay laha diyaarado caadi ah oo DJ baa la yiraahdaa muxuu ahayto loo isticmaalo weeye arrimaha muxuu ahaa developmentiga ama horumarinta markii aan keenay waan cashuurtii bixiyay niisa ka haysatay alaabti qaadatay maqtaqdaday ku jiraan ayaga iyo nimankii recognition-ka ahaa ka bacdina waa fureen awla airport waa lagu furay waxba lama oran ka bacdina way isdalacsiyeen inay iyagu qaataan oo iga qaataan xoog iga qaataan oo aan muxuu ahaa anigu iska tago nimankii waday waa la fasaxay aniga waa la fasaxay toddoba beri baan iska daba kalaabanayay madaxweynaha arrinta u sheegay waa waxa lagu gaaray in la ceebeeyo oo been la iga sheego arrinta haddaan daba galayna arrin siyaasadeed weeye madaxweynaha isu sharaxay waxa loo yahay in dadka Soomaaliyeed sumcad ku leeyahay tartanka iyo gelin aan ceebayno baa loola jeedaa waa dulmi waana dulmi tiro badan oo biiray oo dadka Soomaaliyeed afar sano lagu hayay warina la wado anigana hadda la igu soo afjaray xal kaba jiraan maxkamad baan anigu hadda geenayaa dawladda waxa loo yeerayaa muxuu ahaa dad khubara diyaaradahan inaysan diyaarado dagaal ahayn oo soo ku lahayn waana la cadeynayaa iyagana ceeboobay Libaana waxaan la soconaa in habeen dawlad warbixin soo saartay dawladda Puntland lagu mamnuucayo diyaaradahan droonka ah madaxweynaddani information khaldan baa waxa uu sheegay niisay madaxweyne Farmaajo waxaan hadda ay ku fidiyeen baraha bulshada iyo muxuu ahayd CBB barahooda bulshada ayaanka bulshada ayay u sheegeen dani wuxuu u qaatay marka wax amaan gelinaya amaan dara gelinaya Puntland arrintan ilaa Cabdiweli Gaas baa ogaa waxaan rabnay inaan samayno sahan meelaha iyo markay da'aan dhulka beeraleyda buuraha leh waxay galaan nimbada inaan survey ku samayno oo meelaha ka xiro oo aan faaw iyo waayto ayada cunnada adduunka iyo World Bank aan kaga qaadano mashaariic baan rabnay shirkad baan ku leeyahay xafiis horumarineed baan ku leeyahay Puntland halkaan shirkad baan ku leeyahay sharciyeysan arrintaasi waxay hor istaagaysaa horumarkii cunnada Puntland waxaan ogahay beeraheeda daawooyin lama geeyo ayaan baa ka buuxa ayaxba maalmo soo weerara diyaaradahan waxay baabi'inayaan in ayaankaas iyo ayaxaas isla markaasna hawlaha biyo celinta wax badan u taraya dadka muxuu ahayto ayay wax ka qabanayaan in waana diyaarado civil ah meel loo waday ma jirto anuu yeelan xiriir lama lihin wasiin xiriir lama lihin waxa iyaga fidinaya dacaayada been bay safiirka muxuu Turkiga u sheegeen markuu ogaadana wuxuu yiri ninkan iska sii daayay Turkiga yiraahdeen diyaarado waxay kormareen muxuu madaxtooyada diyaarado kormarayaan ma jiraan sanduuqyo ku jira waa furan yihiin dawlad been ku dhaqmaysa oo qofkii wax taraayo dalka wax taraayo dilaysa oo iyaguna aan wax inay wax qaribaan ma aan waxba sameeyeen yani diyaaradii Mareykanka waa diyaaradaha droniska waa diyaarado waaweyn oo bambooyin qaado kuwaas xoolaha iyaga iyo dadka iyaga lagu leeyahay bay kuwa ka hadlaan inta anaga waxay diyaarado loogu talagalay yar oo loogu talagalay beero ay ciidanayaan cunnada dadka food security-ga qayb weyn ka qaadanaya inta weeyada Libaana marka ugu dambeyn maxaa baa ku diraysaa madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaanba wali yaqaana 30 sano dalkan u dagaalamay toogashooyin baa darteed Ethiopia iyo xukuntay Minazanawi anuu dalkan inaan wax tara maahan wax ma yeelo waxaan ahay khabiir beereed wasaaradda beeraha khabiir ka ahay ilaalinta xoolaha khabiir ka ahay aan ka shaqeynay intaan xildhibaanka noqon waxaan keenay warshado calaf xoolaha sameeyo midna xamartaalo midna garow taalo hatta kuwaas dhul aan ku rakibaan waay 5 sano yaalin magarad waa la dagaalamaya wax allaale iyo wixii horumar ama cunno dadka u sameeynaya fahmt waan fahansan waxaan ka codsanayaa nimanka odayaasha inay dib isugu noqdaan madaxweyne beenta loo sheegay anaa u tagi doono u sheegi doono in been loo sheegay laakiin waxaa nasiib darro ah maajo in uu maantay bilaabay inuu qof
dalka wax u taraya la dagaalamo waxyaalo kale horena waa loo haystay oo tiro badan oo adag tahay ka noqdeen waxa ay igu samaynayaan xaqna iguma laha dadka Soomaaliyeedna ma istaahilaan in wixii cunadooda wax tarayo wax soo saarkooda wax tarayo in la dagaalamo xildhibaan waa mahadsan tahay guud ahaan barnaamijka intaas nooga yahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.